mid ka mid ah baalasha uu ku duulo jacaylku waa kulamada gaarka ah ee lamaanaha. marka uu waqti kula qaadanayo gacaliyahaaga ama gacalisadaada waa marka kaliya ee aad dareemayso qanaaco nafsad ahaaneed. wiilka ama gabadha badweynta jacaylka dhex dabaalanaya waxaan idiin sheegayaa jacaylkiinu haddii uusan lahayn kulamo qorshaysan waa shaax aan sokor lahayn, cunno aan cusbo lahayn iyo gaari aan darawal lahayn. waxaa laga yaabaa in niyadaada ay ku soo dhacdo taleefon ayaan ka wada hadalnaa, facebookna waa madasha maqal iyo muuqaal aan ku wada kulanno, marka maxaan uga baahanaynaa kulamo toos ah? cajiib. gacaliye ama gacaliso, ma og tahay in sababta keenta saddexeeyaha iyo jacaylka dhalanteedka ah ama beenbeenta ay tahay in lamaanayaashu ay baqiilaan isaragooda? ma og tahay in wejigu uusan u qaybsamin laba qof, laakiin wiilka ama gabadhu way u sahlan tahay in codkooda ay saaxiibo badan ku qanciyaan. waana taasi sababta aan kuu leeyahay ha ogolaan cod cid kale ay kula qaybsan karto ee dooro weji marka aad hor fadhido aad ka akhrisan karto heerka jacaylkiinu uu gaarsiisan yahay. qaabka ugu fiican ee kulamada mucaashiqiinta, wiilyahow gabadha aad jeceshahay ha ugu yeedhin gurigaaga maalmaha hore ee jacaylkiina, iskana jir guriga saaxiibka ama midka aad iskaabulo ku tahay oo qoyskiinu aysan kula deganayn. ha ku casuumin gacalisadaada haddii uu hadafkaagu yahay dhisidda jacayl mug leh oo midho dhala. kulamada ugu horeeya ee lamaanuhu waxay ku qurux badan tahay inay ka dhacaan guriga gabadha, weliba galbihii xilliga casiriyada oo jawigu uu degan yahay. marka kulankiinu uu ka dhaco guriga gabadha, wiilyahow waxaad xiraysaa albaabo badan. reerka gabadhu waxay dareemayaan in inantoodu ay heshay wehel. waxaad guriga ka dhex helaysaa saaxiibo kale. waxaad halkaas ka akhrisan kartaa nolosha dhabta ah ee gacalisadaada. midna iga ogolow saaxiib, guriga gabadha ha ku daahin inta aad reerka gabadha aad ku abuurayso waax ka mid ah jacaylkiina. gabarh yahay intaadan gacaliyahaaga ku ballamin gurigiina waa in aad ogaataa waxa saaxiibka uu ka helo. qaabka hagaajinta halka lagu kulmayo gacaliso adiga ayaan kuu daynayaa, laakiin ogow xilligu waa galab, raashin culusna lagama sugayo. keliya isweydii shaax ama cabitaan waxa uu jecel yahay gacaliyahaaga. waa muhiim in dalabka aad ku darsato xanjo ama nacnac kuleel. iskana jira labadiina in midkiin uu calaaliyo xanjada inta uu kulankiina socdo. qaali, qolka aabbe iyo hooyo ama midka walaalka iyo xaaskiisa fadlan ha ku casuumin gacaliyahaaga, waayo xilliga gabaldhaca ah waa waqtigii raggu ay ku soo laabanayeen guryahooda. sidoo kale ha fadhiisin gacaliyahaaga meel qofkii socdaba uu arki karo. qolka fadhiga haddii aad leedihiin darjiimo doog leh ama meel daashka ka mid ah balse aan kor iyo bari loo maraynin, waxba uma dhibayso gacaliyahaaga oo waad kula kulmi kartaa. alla qurux badanay, ogow in shaar aadan lahayn uusan dhaxanta kaa celin. waxaan ula jeedaa guri aan ahayn gurigiina ama midka aad ku nooshahay. ha ku casuumin wiilka aad jeceshahay. ugu yaraan bishii 2 mar oo aad ku kulantaan guriga gabadha ayaa idiin ah difaac saddexeeye idinka xijaabaya. wiilyahow iga hoosir adag, ha iloobinin hooyada dhashay gacalisadaada ama gabadha iyo wiilka la dhashay boqoradaada in aad saaxiib ka dhigato, si difaaca iyo qadka dhexe ee jacaylkiinu uu dhismo. marka guriga gabadha aad hil badan ka hesho aadna gaarto heer marka gabadha teleefoonkeeda la waayo ama guriga ay ka soo daahdo adiga lagu soo weydiiyo, xilligaas jacaylkiinu waxa uu marayaa meel qurux badan. markaas kadib bilow kulamada bannaanka ah iyo meelaha dalxiiska. waana in waqtigu uusan kula fogaan. jacayl sanado qaata oo saacad lagu burburin karo waxaa ka fiican mid bilooyin qaata aad dib u dhammaystiri kartaan. wiilyahow hadda waxaa la gaaray xilligii gacalisadaada aad ku casuumi lahayd gurigiina si iyana ay xog uga hesho noloshaada dhabta ah. gacaliye, waa in reerkaaga aad barto dhaymantaada, hana la saaxiibto in la mid ah ama ka badan intii aad adigu qoyskeeda kala saaxiibtay. markaas kadib haddii uusan jacaylkiinu bulaalin gacaliyayaal, dib u eega qodobadii aan horay idinkugu soo sheegay. balse haddii uu guulaysto halgankiina macaana markaan jacaylkiinu, miyaynan muxibbadu kordhin maalmuhu aysan idiin wacnayn, meherkiina iyo mashxaradiinnuna aysan soo dhowaan.
موولو مقبول كيل أو ميسان ويل محبدين سلام سرد مانتين أنيقو وعباس حسين موسى